السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي ونكسن داود الكسر دواد وراركي وجودن بعالم كحيل جنو كلات كلا سعتان برتين جيلان ميديا وضبط وراني أنا يجد دونا وحكم إذا إيران وحاي سمايسير دولة توس حوجان مريهم كنا واحد من قبتين كسر رجال جنرال كيف اللاجد السودان حوجان من أيه ترامب وحو هنتم يعدنا حماس نتياهنا دينا عاس يولي بسدو كلا وحو سحوجان وقفشلين يهجل كمحابيستا لجا هايستو أو سوين تفتلو قد جاي هاي isbaaysiga gaashaanbuurta nagatana gargaar degdeg ah oo maraakiib ay u dirayaan biyaha badda Baltiga si ay goobtaas uga difaacaan duulaan ka imaada dhinaca Ruushka. Duqeymaha Gaza waa ay sii socdaan qaybo kamid ah cunaqabateynihii saarnaa Syriana waa laga qaaday qodobada ay kuwa kale ayaan eegi doonaa hadii Allah wadalo raali ka ahaado. ku xidhnow dunida casriga ah oo isticmaal Sunbank Mastercard uga adeego si khidmad la'aan ah suuqyada caalamka iyo online-kaba ku raaxayso adeeg degdeg ah ammaan ah oo aan xal lahayn maanta badalbo oo maanta qaado mar kale habeen wanaagsan waa 7 bisha Janaayo sanadka 2025 waana habeenimo ay Arbaca soo galayso aynu ku bilaabnay Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay taliyaha ciidanka gurmadka degdega ama dacmu sariic RSF ee Suudaan General Mohamed Hamdan Dagalo loo yaqaan Hamiti kaasoo hogaamiye fallaagada ka soo horjeeda nidaamka dawliga ee dalka Suudaan. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Dagalo in hogaamiyahaasi uu tacadiyo bini'aadantinimo ka geystay Suudaan ayna hayaan cadeymo ku filan oo muujinaya ciidankiisu ay geysteen xasuuq ula kaca ogayaal wiil qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. waxay Mareykanku sheegeen in xasuuqa ciidankan ay geysteen ay ka fuliyeen gobolka Darfur sida darteedna loo ogolaan doonin isaga iyo qoyskiisuba ay soo galaan dalka Mareykanka. dhanka kale Hamiti ayaa beeniyay inay beegsadeen dad rayid ah isagoo sheegay in dagaalyahanadoodu ay la dagaalamayaan koox hubeysan oo ka san ciidanka Abdulfataax al-Burhaan ee dowladda dalkaasi Suudaan. Dagalo waxa uu xiriir wanaagsan la leeyahay dhanka Imaaraadka Carabta waxaana xanibaadda lagu soo rogay ay ka marakacaysaa in Mareykanka iyo dhinaca Imaaraadka Carabta ay isku beej ka ahayn arrimaha ka socda dalka Suudaan ee dagaalka ee qarxay bishii Abriil sanadkii 2023. dagaalka Burhaan iyo Hamiti ayaa bilowday 2023 waxaana ku geeriyooday 10,000 xilli 12 milyan oo qofna ay ku barakaceen oo ka carareen guryahooda. waxaana ay tani ka dambeysay markii ay labada dhinac isku qabsadeen labada generaal talada dalkaasi Suudaan. Burhaan ayaa dhawaan waday carcar duulaan ah oo ka dhana kooxda Hamiti si gabi ahaanba meesha looga saaro waxaana hadda bilowday dadaal xoog leh oo ku aadan in dadaal nabdeed la sameeyo oo dagaalka la soo afjiro. dowladda Turkiga ayaana hogaaminaysa howlgal aan wari guuleysan oo ku wajahan in labada dhinac ee Abdulfataax Burhaan iyo waliba sidoo kale ninka lagu magacaabo Hamiti ama Mohamed Hamdan Dagalo la isugu geeyo dalka Turkiga. qaramada midoobay ayaa qayb ahaan u codeeyay in meesha laga saaro cunaqabateynihii muddada dheer saarnaa dalka Suuriya qaybo kamid ah la khafiifiyo. tallaamadu waxaysan la macno ahayn in la ilaaliyo dhammaan cunaqabateynadii saarnaa madaxdii hore iyo kuwa haatan talada dalkaasi la wareegay waxaana looga dan leeyahay in la fududeeyo gargaarka aadanaha iyo adeegyada aasaasiga ee bulshada Syria ay u baahan tahay. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ku meel gaarka ee Suuriya ayaa tallaabadan soo dhaweeyay waxaana ku tilmaamay mid dhabaha u xaaleysan gabi ahaanba dalkaasi laga qaado cunaqabateynaha tirabeelka ee saarnaa 15 sano ee la soo dhaafay. ciidanka difaaca cirka ee Iran ayaa bilaabay wajigii koobaad ee dhalatus ay ku sheegeen inay ku difaacayaan hawada xarunta nukleerka ee la yiraahdo Natanz haddii ay dhacdo weerar ku yimaada dhanka Mareykanka iyo Israa'iil. hoggaanka kacaanka Iran ayaa xusay ujeedada dhawlatuska uu yahay in sare loo qaado awoodda looga hortagayo weerar kasta oo ku yimaada xarumaha nukleerka ee Iran. warshadahan ayaa xarumo nukleer oo lagu bacrimiyo uraniumka waxaana ku taala 260 kilomitir goob koonfur kaga beegan magaalada Tehran. sanadkii 2020 waxay noqotay mid kamid ah 7 kaabayaal nukleer oo ay maamusho wakaaladda tamarta ee adduunka. sanadkii 2006 waxa lagu qiyaasay warshadaas inta badan qaybaheeda ugu muhiimsan dhulka hoostiisa ay ku jiraan ku dhawaad 50,000 oo tuubo gaas taas oo u ogolaanaysa inay soo saarto uranium ku filan si ay u horumariso in ka badan 20 madaxyada nukleerka sanad kasta. arrintu waxay imaanaysaa xilli aad loogu badanayo in Mareykanka iyo Israa'iil qorsheynayaan weerar ay ku qaadaan xarumaha tabarta ee Iran marka uu xafiiska yimaado madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump. warbixin gaar ayaanu ku eegi doonaa Iran oo laba aragti oo xaalkan la xiriira ka fakaraysa.
mar kale madaxweynaha xukunka ku soo socda ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin caga jugleena u diray hogaamiyaasha Hamas waxaana uu sheegay in dantu ugu jirto in maxaabiista Israel ay sii daayaan ka hor intuusan aqalka cad soo fariisan dhamaadka bishan. ciqaab adag ay mari doonaan Hamas oo aysan hore u arag haddii ay sii dayn maxaabiista ayuu si kooban u yiri xilli uu carabka ku adkeeyay inuu yahay saaxiibka ugu wanaagsan ee Israel leedahay. mar la weydiiyay inuu Israel siinayo taageero military oo aan kala gool ahayn ayuu Trump ku jawaabay Israel ma helayso saaxiib aniga iga wanaagsan waxaana markhaati ka waxyaabihi aan u sameeyay muddaxileedkayga hore ayuu Donald Trump. marka la eego caga jugleynta iyo hanjabaadaha cusub ee Trump ka imaanaya waxaa muuqanaysa in Trump uu qorsheynayo tallaabo toos ah oo laga qaado dhanka Falastiiniinta marinka Gaza gaar ahaan garabka hubeysan ee Hamas. arrinta ayaa imaanaysa xilli Qatar ay sheegayso inay weli socdaan wadahadallada heshiiska Gaza oo ay barbar socdaan banaanbaxyo ay dhigayaan dadka heeladooda la hayso kuwaas oo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ku cadaadinaya ogolaanshaha xabad joojin kama dambaysa iyo heshiis maxaabiista la isku dhaafsanayo. goorsii horeysay banaanbaxyada ayaa ka socda gudaha Israel ana janaralka 12aad ee Israel uu sheegay in Netanyahu hadda ku khasban yahay inuu aqbalo wax kasta oo soo jeedin oo ka imaanaysa hay'adda ama ehelada dadkoodu ay maqan yihiin oo banaanbaxyo ka dhigaya banaanka xarunta wasaaradda difaaca ee Israel. maalinkii 459aad ciidanka Israel waxay sii wadaan duqeymaha baan ee ay ku hayaan meelo kamid ah marinka Gaza taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac 10 Falastiiniyiin ah. arrintu waxay timid iyadoo digniinaha caalamku ay sii kordhayaan iyo dagaal laga baaqsanayo oo la dalbayo in la helo xabad joojin kama dambaysa. wasaaradda caafimaadka Falastiin ee ku sugan Gaza ayaa qoraal ay soo saartay Talaadada ku sheegtay in ciidanka Israel ay 3 suuq u geysteen qoysas ku nool marinka Gaza oo ay ku jiraan 30 dhimasho iyo dhaawac 57 ruux 24 saac ee la soo dhaafay xilli 17 kamid ay ku dhinteen duqeymihii maanta dhacay. wasaaradda caafimaadka madaniga ayaa ku dhawaaqday in dhimashadu ay gaartay 46,000 iyo 110,000 dhaawac tan iyo markii uu bilowday duulaanka 7 Oktoobar 2023 iyadoo xustay inay jiraan intaasi ka badan oo weli burburka hoostiisa ku jira oo kooxaha gurmadku aysan gaari karin. dhanka kalena guutada Al-Qassam ayaa soo bandhigtay muuqaal la muujinaya qabsashada tiro kamid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israel bariga Rafah waxaana ay sheegeen inay ugu talagaleen in diyaaradahan ay dib u adeegsanayaan. ugu dambeyntiina isbaahisiga gaashaanbuurta NATO ayaa shaaca ka qaaday inay maraakiib dagaal oo gaaraya ilaa 10 markab ay geynayaan badda Baltiga si weerarada Ruushka ee biyaha hoostooda looga hortago. Moscow waxaa lagu eedeeyay inay ballaariyeen weerarada kaybalada internetka ee badda hoostooda mara taasoo jawaab u ah taageerada reer galbeedku ay siinayaan dhinaca Ukraine gaar ahaan midowga Yurooba. waa sid mudan in 25 iyo 26 December ay go'een 4 xabbo oo kamid ah hargaha ama waayirada qaada internetka ee isgaarsiinta ee badda hoostooda mara kuwaas oo 3 kamid ah isku xiri jireen Finland iyo Estonia halka kan kalena uu isku xiriyay Finland iyo Jarmalka isla markaana khadka internetka ee isgaarsiinta uu hakad ku yimid. waxaana muuqata in hadda labada dhinacba ay aadayaan dhammaan tallaabooyin kala duwan oo dadka kale uu ku dhibaataynayo dhinaca iyo waliba soo kale isbaashiga gaashaanbuurta NATO ay si xooggan u baritaarayaan Zelensky iyo waliba sidoo kale qorshihiisa la xiriira inuu ka guuleysto dagaalka Ruushka uu dalkiisa ku soo qaaday kaasoo hadda 3 sano jirsanaya. American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelidda jaamacadaha Mareykanka. qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda.